السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو dhawaada saaxiibayaal meel walbaad joogtaan waad salaamantihiin wixii dhiban oo reeqasa oo horeeyaan dhibta Allah ka dulqaado wixii bukan Allah caafiyo qof walba oo muraad lena muraadkiisa oo macsiyo lahayn midigta Allah ka siiyo intaas ka bacdi waqti hore oo waqtiyada ka mid ah ayaa waxaa jirtay saddex nin oo dhalinyaro ah oo maalin maalmaha ka mid ah geed hoosti fadhiya oo sheekaysanaya oo sheeko caadi ah ka sheekaysanaya oo si caadi ah isaga sheekaysanaya oo noloshooda adduuniya waayahooda ka sheekaysanaya ayaa midkii koobaad baa hadlay oo sheekada bilaabay oo wuxuu yidhi aniga xaaskaygu aad bay ugu kalsoon tahay way jeceshahay anna waan jeclahay waan isku kalsoonnahay aad baan isku aaminsanahay mana aaminsani oo mana jirto wax sira oo xaaskay iga qarisay kii labaad baa qaatay hadalka wuxuu yidhi aniga laftarkaygu kula mid baan hoo sidaa aad sheegaysay si la mid aan ahay oo noloshayda intaan noolahay aniga xaaskaygu wax noo kala qarsoonba ma jirto oo aad iyo aad ayaan isku dhuuntan loolnaa wax sira oo noo kala qarsoon amba wax ay iga qariso ma jirto xaaskaygu meel geed hoostii fadhiyaan waxaa u dhow markaa meesha geedka hoos fadhiyaan ceel ummaddu magaalada degan ay ka cabto midkii saddexaad ee saddexda nin ee meesha fadhiya sheekaysanaya ka mid ayaa wuxuu yidhi anigu waxaan ahay nin aad u kulkulul oo dabeecad adag oo aad u dabeecad xun waaba iga cabsataaba inay wax iga qarisa iska daayay aniga xaaskayga iga cabsataa markaa waxba igama qarso sheekadoodii iyagoo saa u sheekaysanaya oo sheekada caynkaa ka sheekaynaya ayaa odaygii maqlay sheekada ay ka sheekaysanayaan meel aan ka fogeyn oo geedkan agtiisa ah oo ceelkiina uu joogaa isagu marka wuu u yimid wuxuu ku yidhi waxaad ka sheekaynaysaan wax alla wax ka jiraa ma jirto dumarka sirtooda lagama salgaadho horaa loo yidhi sir naageed lagama salgaadho waxa aad sheegteen oo dhan waa been dumarka sirtooda adeer lagama salgaadho odaygii wuu ka tegey marka saddexdii nin waxay isku dhaarsadeen inay maanta warka odayga beeniyaan ama rumeeyaan oo sidee macnaha warka inay baadhaan oo noolba xaaskiisa siduu sirta uga soo saari lahaa amba hadday jirto inay wax ka qaranayso oo ku ogaan lahaa nin walba inuu falankeeda galo ayay go'aan gaadheen ninkii ugu horreeyay baa sheekada bilaaba wuxuu yidhi aniga ayaa bilaabaya qof xanuunsan baan iska dhigayaa sankaraadaan iska dhigaya iqaada inigoo isida oo nin xanuunsan ahaan ii siday gurigay geeye dhulku isku tuuray way qaadeen sidii loo siday gurigii baa la geeyey xaaskiisii baa loo geeya maxaa dhacay maxaa ku dhacay oo ninkuwa basteeda waxba xanuun baa ku soo booday ay sariirtii baa la dhigay labadiina way iska noqdeen iyagu ninkii cabaad basteed baanahay sakarad baanahay inaan dhimanayo ayaan u dhowahay ee xaaskayga kaale waxbaan ku weydiinayay oo u timid anigu nin dhimanaya ayaan u ekahay si aynu si fiican adduunyada u kala tegno hadday jirto wax xun adiga qaranaysa ii sheeg intaan dhimin waxay tiri noloshayda hal shay baan kaa qariyey oo muxuu ahaa shaygaasi waxaan kaa qariyey waqtiyada ka mida ayaan helay dhagax dhaymana oo qaaliya ayaan beerteeda ka helay dhagaxii uu qurux badnaa uu ii cajabiyey markaan wuxuu yihi ma garanayn waan qaaday suuqaan geeyey waxaa la ii sheegay dhagaxaas inuu dhayman yahay oo qaali yahay oo noloshaydoo dhan intaan doono haddaan noolaado oo iga badan yahay dhagaxii waan soo qaaday ma iibgeynin adiga kuma sheegin gurigeena meel ka mid aan ku qariyey oo maxaad iigu sheegi weyday ood u iibin weyday waxaan u iibin waayeen kugu sheegi waayey waxaan ugu talagalay maalin aan maanta uga baahi badannahay amba xaaladdeenu maanta ka xun tahay inaan soo saaroon iibiyo qarshul abyad yanfacuka yowma alaswad baan u jeeday macnaha waxaad maanta meel dhiga tahay beri ka maalin buu ku anfacaya habeenkii
markii warkaa u sheegtay way seexatay islaantii way seexatay xaaskiisii way seexatay markii uu ogaaday inay seexatay ayuu kacay gurigii buu tin iyo cirib raadin ku bilaabay bal dhagaxan ay sheegayso guriga meesha kuga jiro inuu soo saaro uu baaray meel kasta uu baaray gabadhii baa aragtay hoosta ka eegaysay xaalkiisu dhan buu hoosta kala socotay qof hurday isaga dhigaysay maba seexan iyadu markay aragtay ninkii oo guriga baaritaan ku bilaabay bis ishaan bay hoostaan bay ka daawanaysay habeenkii oo dhan ha raadiye uun ha raadiye uun ha raadiye uun ha raadiye uun meel walba uu ka eeg nag ku salaaxi waay uu waayey jaan iyo cirib meesha uu dhigay waxa dhagaxa ay sheegaysaa meesha uu jaan iyo cirib dhigay ayuu waayey siduu u baadhayey ayaa waagii baryey markii waagii baryey ayaa ku tiri maxaa ku dhacay intii qof baradhoogtay iska dhigtay oo ayaa ku tiri maxaa kugu dhacay sawdigii laa waan xanuunsanayaa naa xanuunkaa ba'ye dhagaxan aad sheegaysa halkuu maray buuri waxay ku tiri dhagax aan helay oo qaaliyo meel jiraa ma jiro wax alla waxaan ku sheegay been bahed oo sabab dee adigu been baad sheegtay oo waxaan ku ogaaday markan aad lahayd waan xanuunsanayana been ka ahayd baan ku ogaaday marka inaan been kuu sheego kuwan jalo oon gidaar ku dhiibo ayaan ugu talagalay siro badan oon kaa qaranayana way jirtay kuumana sheegayo ninkii madaxuu qabsaday gacmuu taagay aad buu ninkii gacanta ugu tagay xaaskiisa ninkii kulkululaa ayaa loo yimidisnaa ninkii kulkululaa xaaskiisii buu sinoo tagay waa ninkii labaad ninkii koobaad intaasuu isagoo sheekadiisa ku eeg tahayoo xaaskiisii saasii kaga guulaysatay wuxuu ogaaday wixii odaygu sheegay run inay ahayd kii labaad oo ah kii kulkululaa ee dabeecadda qalafsanaa ee xaaskiga way iga cabsataa iyo waxba igama qarsa lahaa ayaa tookadiis la soo gaadhay xaaskiisii buu tegey nin kulkulul buu ahaa mar walba xaaskiisa ku qayliya ay ka cabsato siduu u soo socday ayuu habeenkii gurigiisa yimid xaaskiisii buu hanjabay wallaahi caawa su-aashaan ku weydiiyey haddaad iga jawaabi weydo madaxaan kaa jaraya waan ku dilaya sidaasaan kuu galaya hanjabaad sidiisii de bootadii buu bilaabay waxaa dhacday waxay ku tiri hal sir baan kaa qariyey waxaan kaa qariyey markaan iskuursanaynay wuxuu aabbahaa ii sheegay inaad nin kulkul tahay wuxuu igu yidhi oon aniga aabbaha ku heshiinay in haddaad gacanii qaado aan kaa baxsado iska kaa furo wax alliya waxaad hanti iyo dhaxal aabbaha ku leedahayna aabbaha uu i saxeexo sidaas aniga aabbaha ku heshiinay dhaxalkiina waraaqadiina wuu saxeexay markhaatiyadii waraaqada ku qornaa iyo wixii waraaqadii oo dhanna waan hayaa gurigeena taallaa maxaa caddaynaya buu ku yidhi waxaa caddaynaysa bay ku tiri waraaqad buu aabbahay qoray markhaatiyay ku qoran yihiin in haddii aad gacanii qaado ama aad dhibaatayso aan iska kaa furo kadibna waxaad isaga dhaxal ku leedahay oo dhan anin lagu wareejinayo yaab ninkii habeenkii oo dhan iyo waraaqadda raadinayay meel kasta oo guriga ka mid uu ka raadiyey waraaqadda isna sidii ninkii horoo kale uu waayey meel ajaan cirib degtay gabadhii buu yimid waraaqadii inaad siisaa jirta buuri haddii kale wallahi waxa ku dhacda adaa ka sheekayn waxay ku tiri nin doqon baa tahay waxa aan kuu sheego horta waxba kama jiraan waxa aan kuu sheegayo wax alle wax ka jira haba yaratee ma jirto waayo horta inaad doqon tahay sirta aan kaa qariyey keliya waxa weeye inaad doqon tahay yana kuu sheegi inaad doqon tahay waxaa caddaynaysa waad ka qalqalay taqaanaa maahin oo caqli kuguma jiro siirobata waxaa caddayn u ah su-aal aan ku weydiiyey adoo caqli miyaanad lahayn waxaan kugu idhi haddaad i furto ood i dhibaatayso aabbahaa dhaxalkaaga iigu wareejinaya sidee caqligal ku tahay caqligal sidee ku tahay aabbahaa wuxuu ku soo tabcayey intaasoo sano
ee wiilkiisa ku soo tabcayay miyuu aniga siinaya waliba ka sii daran oo markaad waliba i furto ilaa markaad i furto xadhigii ani aabbaha naga dhexiyay adiga ahaa uu ka baxay meesha waan is furnay reerkaygaan tegaya aabbaha siduu gabadh inankiisiiba furtay siduu u siinay dhaxal ninkii dib buu isugu noqdo wallaahi waa runta ninkii wuxuu ogaaday inay xaaskiisu run sheegayso caqli aanu doqon yahay ama sirtaan kaa qariyay tiri inaad doqon tahay weys tira kaloo badanna way jiraan kumana sheegayo ninkii isagoo isna sidii ninkii hore yaaban ayuu meesha ka luuday ninkii saddexaad ayaa la soo gaaray ninkii saddexaad intuuna tallaabo qaadin saaxiibadii buu yimid wuxuu ku dhaw bal iga warram wuxuu idin gaadhay xaasaskiinii ma u tagteen haa waan u tagno nin walba wixii ku dhacay buu ka warramay wuxuu dhahay xaaskaygii macalin baan helay bay tiri been ii sheegaysay kii kalena wuxuu yihi hooyada aabbahaba dhaxalkii igu wareejinayay bay tiri been bay sheegtay markaasuu yidhi odaygii waxaan jin ninkii keenaa bixiyee odaygii warkan keenay aynula doonano anuu islaantadii uba tegi maayo buuhi waxba weydiin maayo maadaama arrinkaasi nin iga soo baxay anuu waaba shakiiba saacadda laga bilaabo arrinta faraa lama galayo odaygii ayuu u tegey odaygii bay raadiyeen sidii caadada ahayd waxay ka heleen meeshii geedka hoostiisa ahayd ceelkii u dhowaa isagoo ceelkii biyo ka dhaansanay u yimaadeen waxay ku idhahdeen nin waxbaa nagu soo dhacay oday waxbaa nagu soo dhacay dhibtaasaa nagu dhacday warkii ku dhacay bay uga warrameen wuxuu ku yidhi nin nima yahow sir naageed lagama sil gaadho hora loo yidhi anna waa idin sheegay dumar haddaad doonayso inaad sirtooda ka sil gaadho qalbigooda loo dhowaadaa tartiib baa loogu dhowaadaa kalsooni baa laga raadsadaa kalsooni baa lagu abuuraa laakiin xoog baan wax kaga raadin oo xoog baan sir kaga raadin dad tiraahdo waxba ka helmaysid dumarkuna sirtu xuun baa kulleyba u qarsoon si walba oy isku jeceshihiin wax u qarsoon baa jirta qisaan idinka sheekeynayaa buuri boqor baa jiri jiray buuri maamaha baan qisaan idinku dhex tarayaa buuri odaygii baa markaa raggiisaa kulay boqor baa jiri jiray buuri waqtiyadii hore ka mida boqorkaasi wuxuu aad u necbaa dumarka wuxuu markaas oran jiray dumarku waa khiyaamooyin waa khiyaanoloyin waa khiyaamo badan yihiin dumar buu xidhay marka keliya wuxuu u xidhay dumar nacayb iyo way khiyaano badan yihiin buu dumar u xidhay maalinkii dambe gabadh xikmad badan odayga boqorka u tagtay boqoroo bay tiri kaalay waxay u dhiibtay koob ay biyacad ku jiraan iyo koob biyacas ku jiraan labadaa biyo isku dar bay ku tiri isku dar wuu isku daray markuu isku daray midab dhexdhexaada yeesheen oo casaan nahayn caddaan nahayn oo oranji ama huruud oo kale ah ama jaallo oo kale ah waxay ku tiri biyaha midabka caynkaa yeeshay kala saar qaybna caddaankeedii ku celi qaybna guduudkeedii ama casaankeedii ku celi wuxuu ihi see ku dhici kartaa waxaas caqli maaha waxay ku tiri adu sideed ku keentay dadka intaa leeg dumarka intaa leeg soo xidhay qalbigooda goorma daalacatay ood kala ogaatay ta xun ee qalbigeedu xun yahay ee khiyaamoonaysa iyo ta fiican sidee baad ku ogaatay adu dee ma ogaan buuri dee dumarka oo dhan wada khiyaamoolooyin maaha qaar khiyaanolaa jira qaar daacadaa jira boqorkii xikmaddii gabadha u ka yaabay dumarkiina caafis buu fidisaa buu ku sii daayay marka qisadan mixwarkeyga iyo dubdhexaadkeyga iyo dulucdeed waxaa weeye sir naageed lagama sal gaadho asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu